nin dhalinyaro oo Amerikaan oo mulxid ah ayaa taxadiyay dhammaan mashaayikhda iyo dadka ka soo horjeeday, laakiin mucjiso aad u weyn ayaa ka dhacday goobtii oo ka yaabisay dhammaan. Muuqaalka intaada daawan ka hor waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa channelkan Qisas Mubaarak Official inaad subscribe saarto, gambalaalkana aad furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aalaba aan halkan kusoo gudbino. Sidoo kale waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa super page CM inaad like saarto muuqaalkan sheegaya si uu u sii gaaro muslimiin badan. mid ka mid ah mulxidiinta aan Ilaahay rumaysnayn ayaa taxadiyay oo su'aashiisa ayay jawaab u waayeen muslimiintii kula sugnaa magaalada uu ku sugnaa. Caalimkii magaalada ayay u ballamiyeen ninkii mulxidka ahaa. Waqtigii xadadnaa ee loo qabtay ayuu in yar kadib dhacay caalimku. mulxidkii ayaa ku yidhi dadkii goobta fadhiyey, caalimkiina wuu cararay wuuna cabsaday maxaa yeelay wuxuu og yahay inaan ka guulaysan doono, aniguna waxaan sugi doonaa caalamkaanu wax ilaahay inuusan lahayn. intuu hadlayay ayuu yimid caalimkii muslimka ahaa, wuxuuna ka cududaartay daahitaankiisa iyo dibdhiciisa. wuxuu yidhi caalimkii, anoo waddada ku soo socda halkaas ayaan waayay waxaan qorraxda uga gudbo. waxaan sugay waadigii, isla markiiba waxaa dhacday mucjiso aad u weyn oo Ilaahay xaggiisa ka ahaatay. waxaana waadigii ka soo baxay qori alwaax ah, qayb ayuuna isugu dhegay si degdeg ah, waxayna u samaysmatay qaab la yaab leh. qorigii alwaaxa ahaa ayaa imaaday badda geeskeeda asagoo u samaysan qaab doon ah, wuuna ii soo dhowaaday, isla markiiba waan koray waanan idiin imid. mulxidkii ayaa yidhi, ninkani waa nin waalan, siduu qori isugu dhegdhegay iyadoon jirin cid samaynayda? siduu u soo dhowaaday, siduuna u dhaqdhaqaaqayaa iyadoon jirin cid dhaqdhaqaajinaysa? caalimkii ayaa qoslay wuxuuna yidhi, sideed u leedahay sidaas, adigoo dhahaysid caalamkan weyn wax ilaaha ma lahan? mulxidkii ayaa yaabay, wuxuuna ku qancay caalimka muslimka ah hadalkiisa. wuxuu yidhi, waxaan rabaa inaan islaamo. subxaan allah. mucjisadii qoriga ayaa dhacday ilaa uu mulxidkii qancay uuna islaamay. si kastaba ha ahaatee, qisadan ayay in badanoo dadka ka mid a waxay aaminsan yihiin inaysan xaqiiqo noqon karin, laakiin caalimkan ayaa ku fakaray inuu qanciyo ninkan mulxidka ah, qisadan ama xaqiiqo ha ahaato ama yaysan ahaan. wuxuuna ku qanciyey shay kasta inuu leeyahay khaaliq iyo cid abuurtay. muuqaalkan sheer garee oo muslimiinta gaarsii.